Kusoo dhawow Somali Voice in Norway magacaada iyo muddada aad magaalada joogtay. magacaygu waa Cismaan Sheekh Cali Maxamuud magaaladan Bergen waxaan deganahay nastan ku dhowaad sanadkan waxaan u maleynayaa inaan 7 sano galayo. Sidee u aragtaa tirada ururada Soomaalida iyo tayadooda? magaaladan horta ururo badan ka dhisan inta aan aragnay marka dadka Soomaalidana waxa waaye ururadaas oo kala socsocan Maxay ugu baahi badan yihiin bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Bergen iyo waa nawaaxigeeda? su'aal muhiim ah shiina bulshada Bergen hal walax u baahi qabaan aan is leeyahay aniga Cismaan ahaan ka ra'yi ahaan ka oday ahaan waxaan is leeyahay iska warqabka dhexdooda in ay ururadan tirada badan oo magaalada ka dhisan inay ayaga laftooda iska warqabaan. Maxay tahay fariinta aad Somali Voice u marinayso heerarka kala duwan ee maamulka Norway? waxaan jeclaan lahay in komunalaha aan u diro ama kale maamulka magaalada Bergen in aan u diro inay dadka u naxariistaan bulshada ay xukumaan ee maamulka u yihiin si cadaalad ugu shaqeeyaan insha Allah. Maxay tahay fariinta aad bulshada Soomaaliyeed u marinayso Somali Voice in Norway? bulshada Soomaaliyeed horta hore dalkan ku nool waa bulsho aad u degan nabadoon dal nabada joogaan caafimaad haystaan wax kasto helaan dalkaanna waxay ku dhex leeyihiin saameyn marka waxaan dhihi lahay inay inta saameyntooda bannaanka ula soo baxaan ee ururada iyo jaaliyad ahaan inta isku soo xilqaamaan soo baxaan komunaalka ka qayb galaan golaha deegaanka ka qayb galaan bulshada dalka ku nool oo ah dad tiro badan si ay ula qaybsan lahaayeen inay ku taxadiraan insha Allah tacaala